لبيب من استنار بدربه بالعلم نورا واتخذ التقى حللا ما كان يرفع مرءا منصب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhalinyarada waa udub dhaxaadka bulshada, waayo dhalinyarada waa quruxda wadan walba, waana waxa ay ku faanaan wadamada hormaray. dhalinyaranimadu waa xiliga ugu wanaagsan ee qofka bini aadamka ah soo mara waqtigiisa. qofku wuxuu helaa fursado badan uusan mar kale helaynin. dhalinyaranimadu waxaa lagu tilmaamaa in ay tahay xiliga qofka uu haysto fursadaha ugu qaalisan, waana xiliga ugu caafimaadka badan yahay caqli ahaan iyo jismi ahaan. dhalinyaradu waa xooga ugu firfircoon oo ummadu leedahay, waana muraayada kaliya ee laga eegto waxa bulsho kasta u dambeyn doono. dhalinyaradu waxaa saaran waajibaad fara badan, waxaana ka mid ah waa in ay hami adduun iyo mid aakhira leeyihiin, allana ka cabsadaan, lana yimaadaan cibaado suuban iyo camal wanaagsan. mar kastana ay ahaadaan dad alla ku xiran, kuna dadaalaan hadba wixii uu alla fursad u siiyo, waxbarasho ama shaqo. waa in ay ku dadaalaan sidii ay u anfici lahaayeen una horumarin lahaayeen bulshadooda, kana qayb qaataan horumarka bulshada iyaga oo ugu qayb qaadanaya maskax, muruq iyo maal intaba. waa in ay ku fikiraan maxaad bulshadiina u qaban kartaan, kuna soo kordhin kartaan, kana dhex muuqdaan waxqabadka bulshadooda. waa in ay la weyn tahay talada waalidkooda, mar kastana ka shidaal qaataan cidda ay isleeyihiin waxbay ku kordhinayaan, niyaddana ku hayaan ciddii soo korisay in ay markaan miro iyo manfac ka sugayaan. waa in aysan u qaban waxa ay qabanayaan hebel baa qabtay ee adna qabo, laakiin waa in ay tahay wax iyaga ka go'an oo naftooda iyo dadkoodaba anfacayo, si ay u noqdaan dhalinyaro bulshadooda wax weyn u tartaa, waxna ku soo kordhisa. ogow qofka xilka ugu weyn ee la saaray inuu yahay in uu wax barto, dadaalo oo shaqeeyo, kuna hamiyo siduu naftiisa iyo dadkiisa u anfici lahaa, uguna mari dhalin lahaa qarashkii iyo tacabkii la geliyey, heerna gaarsiiyo bulshadiisa. halkaas ayuu ku egyahay muuqaalkeena maanta. fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalka subscribe saar, waadna ku mahadsan tahay daawashadaada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.